habeen wanaagsan daawadayaal aniga maxamed cabdi xaraar idin la socodsiinaya barnaamijka caawa aan ku bilaabe labadii maalmood ee ugu dambeysay xukuumadda jamhuuriyadda iskad madaxbanaanida ugu dhawaaqday ee Soomaaliland iyo xisbiga mucaaradka ah ee wadani waxa ka dhaxeeyay muran xoogan oo ku aadan xubnaha guddiga doorashooyinka shalay gudoomiye Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro ayaa ugu baaqay in taageerayaasha xisbiga ay isugu yimaadaan xarunta xisbiga taas oo sababtay in ciidanka booliska ay xarunta la wareegaan isla markaana ay xiran saraakiil ka tirsan xisbiga iyaga oo sidoo kalena amar ku bixiyay in aanay taageerayaashu tagin xarunta si kastaba ha ahaatee saaka aroortii waxa xarunta xisbiga wadani oo isku dhac ku dhexmaray ciidanka booliska iyo taageerayaasha xisbiga wararkii ugu dambeeyay Sadiiq Maxamed Burmad ayaa inoo haya ilaa 200 oo taageerayaasha xisbiga wadani ah ayaa xafiiska isu soo hortumay iyaga iyo madaxdooda waa loo diiday inay xafiiskooda galaan dhagaxaantan aad arkaysaan waxay ku go'an yihiin wadaduna waa tii tagaysay xafiiska xisbiga wadani uu ku leeyahay magaalada Hargeysa oo imanka halkaa inoogu beegan wadada kale ee saa u soo galaysa iyo ta dhinaca kaga imanaysa afarta dhinaca wadooyinka ka soo galaya afar dhagax ayaa xalay dawladdu ay ku rogtay taasi oo looga gol leeyahay in lagaga hortago isu soo baxa uu ku baaqay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ah ee wadani ee taageerayaashiisu inay xafiiska isugu yimaadaan markii dambe si xoogayay ku jiireen gudaha xafiiska ayaanu noogu warramay gudoomiyaha xisbigu waxaan ka xunnahay saaka 6 subaxnimo la wareegeen ciidan xarunta xisbiga falkaas oo falnabiye sharci darro ah hase yeeshee hogaankii xisbiga iyo mas'uuliyiintii xisbigu waxay si nabadgelyo ku soo gaadheen xaruntii xisbiga ballantii saakaan dadka la ballanay sideedii bay u dhacday markii madaxda xisbigu ay ka ambabaxayeen xafiiska ayaa buuqa shacabka iyo ciidanka u dhaxeeyay uu kordhay rasaas ayaa ciidanku ay kor u ridayeen dadka ay ku kala eryayaan subaxii horena nin askariya ayaa nin askariya isla goobtan ku toogtay haatan waxaanu nimi xarunta taliska ciidanka booliska waxaana aanu u galaynaa taliyaha ciidanka booliska oo xafiiskiisu uu halkan yahay si aanu wax uga weydiino ciidankii saaka ku sugnaa ee xarunta xafiiska rasaastii aanu maqlaynay ee dhacaysay sababta ay u ridayeen askartii iyadoo dhowraysa oo la hadlaysa ayaa xabad rasaas waxa riday nin isaga la socda oo askariya oo kuwii ciidamada qaranku ay u siiyeen inuu ammaankiisa ilaaliya lagu sharfaya taliyihii qaybta bariga ee goobta joogay toogtay sidaas dabeedna uu gudii ku galay sigay dadkiisa labadii sarkaal ee ka tirsanaa xisbiga wadani ee xalay la xiray ayaa weli sidii u xiran waxaana loo gudbiyay xabsiga Madheera Sadiiq Maxamed Burmad BBC Hargeysa وهاجاج هدبا محو salka ku haya khilaafka siyaasadeed ee si xoogaysanaya binaan xaaji daahir ayaa inoo sharaxaya mahadsanid xaraare tan iyo markii ay dhacday doorashadii Soomaaliland 13 November 2017 ee lagu doortay madaxweyne Muuse Biixi Cabdi waxa si xoogaystay oo kor u sii kacay muranka ku aadan kalsoonida lagu qabo komishinka doorashada waxaana ka soo horjeestay isagu komishinkaasi kalsoonida kala noqday gudoomiyaha xisbiga mucaaradka Cabdiraxmaan Ciro oo sida uu sheegay kalsoonida kala noqday hadii aynu eegno Soomaaliland waxaynu arkaynaa in 3 jeer ay xisbiyadu ku dadaaleen inay heshiyaan laakiinse heshiisyadaasi aanay waxba ka soo bixin oo aan qolaba ay dhan u fasiranaysay kamana fulin qolo walibana dhankeeda ay arrimaheeda wadatay xisbiga ucud ayaa isagu isku dayay inuu hogaaminayo Faysal Cali Waraabe inay isu soo dhaweeyaan labada dhinac taa laftigeedana guul lagama gaadhin haddii aynu eegno dhawaan ayaa golaha wakiilada ee Soomaaliland ansixiyay 6 kamid ah komishinka doorashooyinka oo ku jirta xubin ay aad uga biyadiideen labada xisbi mucaarid ucud iyo wadani xubintaasina waxa weeye waa Cabdirashiid Maxamuud Riyaraac oo isagu ahaa wasiiru dawlad ka tirsan dawladii Axmed Siiraaye waxaanu ahaa wasiiru dawlaha xanaanada xoolaha xisbiga kulmiyana kamid ah xisbiyada mucaaradku waxay sheeganayaan inay hayaan cadeymo muujinaya isagoo ka baxay anshaxa dhexdhexaadnimada isla markaana jabiyay xeerka xulista komishinka doorashada Soomaaliland hadaynu eegno guud ahaan waxa jirta in muranada doorashooyinku ay soo jireen noqdeen iyadoo imika madaxweyne Biixi uu golaha guurtida u qoray warqad muddo kordhina oo golaha wakiilada dhammaan 3 gole ee Soomaaliland waa deegaanka wakiilada iyo guurtida ayaa muddo kordhin iyo muddo dhaafid ku fadhiya taasi oo la sheegayo inay wiiqayso kalsoonida laga qabo golayaashaasi iyo geedi socodkii dimuqraadiyadda ee Soomaaliland haddaba su'aasha la isweydiinaya waxay tahay murankani halku saldhigi doonaa maxaase maalmaha soo socda mustaqbalka la filayaa waa kan maxamed xaraar
bidhaan xaaji daahir aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. haddaba waxaa stuudiyaha la jooga maxamed cali oo ah gudoomiyaha xisbiga wadani ee dalkan UK. maxamed b b c da kusoo dhawow. haddii dowladdu idinkaga digtay in aad isu soo bax samaysaan maxaad u qaadeen tallaabadan amniga qalqalka gelinaysa? maxamed waad mahadsantahay. annagu maana horta dee dowladdu runtii xaq uma laha in ay diido xisbigu inuu ku shiro xaruntiisa, in ama horteeda ha ku shiro ama gudaheeda ha ku shiro. taageerayaasha xisbiga wuxuu dastuurku u siinayaa xisbi kasta in ay xaruntiisa ugu yeedhi karaan iyada oo wax ogeysiisana aanay cidna hore u siinin. ugama baahna inay wax ka qaataan ruqsad ah cidnaba. marka annagu dowladdu waxay diidaneed baday garan mayno runtii. dowladdu waxa mudaaharaad ma jirin oo lama mudaaharaadin. waxay ahayd xisbigu inuu ugu yeedhay taageerayaashiisa xarunta xisbiga horteeda si uu ugula hadlo oo uu ugu sheego xaaladda dalku marayo. waa garta laakiin sidaad ogtahay taliyaha booliska waxa uu sheegay in ay fahmeen arrintan wax kale ka dhalan karaan, sidaas daraaddeedna ay u diideen. marka sow lama oran karo khalkhalkaad dhibaato gelisay magaalada amnigeeda? maya, waxa gelisay khalkhalka magaalada waxa gelisay xukuumadda mudaharaaday. waxaa caddaynaysa taas isgoys kasta oo magaalada ku yaala waxay dhigaan ciidan, waddo kasta waxay ku rogeen iskarogo dhagxaan ah. marka cidda mudaharaaday waa xukuumadda. iyadaa diiday inay dadku isu socdaan, iyadaa diiday inay dadku yimaadaan xarunta xisbiga, iyadaa xaruntii xisbiga xidhay oo afduubtay. marka wadani xisbigu wax allaale iyo wax khaladahoo uu sameeyey marnaba ma jirto. waxaan dastuurka u damaanad qaadin waxaan ahayn ma samaynin. maxamed waa mahadsan tahay. commissionka horena waa diideen, iminkana xubin keliya ayaad ku dhegantihiin. soo la isma oran karo waa sii adkaynaysaan xaaladda doorashooyinka somalilan? maya, commissionkii hore sidaan horeba u sheegnay marnaba raalli kumaanaan ahayn. sanadkii hore bishii 3aad ayaanu u gudbinay madaxweynaha qoraal 14 beja oo aanu leenahay commissionka kalsooni kuma qabno. ilaa intaa waa 2 sanadood imika ayaa laga wada hadlayay arrintaa. 66 shir ayaa laga galay oo xisbiyada mucaaradka iyo xukuumadda iyo waliba dhexdhexaadiyayaal caalamiga ay ka galeen. intaaba waxa la isku haystay hal bedelo, la iskuma haysanin waliba hal bedelo oo la isku raacsanaa. laakiin madaxweynuhu wuxuu ku dhaganaa waqtigooda markay gaadho ha tagaan ee imika ayaan bedelin kuwii. marka hadda kuma dhaganin mid labaan ku dhaganay. waxaan ku dhagannahay oo aanu diidanahay marnaba aan raalli ku ahayn in xubin ka mid ah guddidii hore ee commissionka la soo celiyo. waxa kale oo aan raalli ku ahayn xubin ka mid ah oo xisbi ka tirsan oo wasiir ahaa oo siyaasi ah oo golaha dhexe ee xisbiga kulmiye ku jira in marnaba anagu shakhsiyadiisa ma waxba kama sheegayno in marnaba uu dhexdhexaad noqon karo. marnaba ma aaminsan. waa garta laakiin maxamed arrintan waxay u muuqataa in xisbiga mucaaradka ee wadani uu dib u dhigaya doorashooyinka halkii la rabay in xisbiyada mucaaradka doorashooyinka soo dhaweeyaan ay dowladda ku khasbaan. soo adinku dib uma dhigaysaan? maya waxa u dhigaysa xukuumadda u dhigaysa, madaxweyne Muuse Biixi baa u dhigaya. diyaar uma aha inuu doorasho qabto. muran marka laga baxo mid cusub buu bilaabaya. imika wuxuu u doonayaa tan inay doorashadu dib u dhacdo, in muranku sii jiitamaabuu doonayaa. dabeetana marka muddo la gaadho haddana la yidhaaho maxaynu yeelnaa. marka wadani marnaba mar walba wuxuu diyaar u yahay doorasho in la qabto. dib berri la qabanayo diyaar buu yahay. marnaba waxaanu doonaynaa uun cid dhexdhexaada oo xukuumad oo xisbiyada oo dhan u dhexdhexaada oo lagu wada kalsoon yahay inay meesha timaado. maxamed cali aad iyo aad ayaad u mahadsantahay. waa gartay waa hagaag. xukuumadda somalilan waxaa kale maanta xidhay xarunta tv-ga Horn Cable ee magaalada Hargeysa. sidoo kale ciidanka booliska ayaa maanta xabsiga dhigay tafaftiraha tv-gaasi Cabdulqaadir Salebaan Caseer. agaasimaha tv-ga Horn Cable Maxamed Cabdi Elig ayaa BBC-da u sheegay in aan wax sabab ah oo loo xiray aanan loo sheegin, warqad shaqada lagaga joojinayana aanan loo keenin iyaga, balse waxa uu intaasi ku daray in uu ka war helay in wasiirka warfaafinta uu sameeyey warqad baadhis ah oo la geeyay xafiiska CID-da. xukuumaddu tallaabadaasi qaaday iyadoo aan ka fiirsan xeerarkii iyo shuruucdii dalka u yaalayna aan ixtiraamin, wasiirka warfaafintuna uu rabitaankiisa warqadda xayiraadaha ugu qoray. tafatiraha tv-gu wuxuu ku xidhan yahay sifo sharci darro ah, Horn Cable TV-na wuxuu ku xayiran yahay sifo sharci darro ah. wasiirka warfaafinta Somaliland Maxamed Muuse Diiriye oo aynu la hadalnay waxa uu ku eedeeyay telefishinka Horn Cable in uu ku kacay falal sida wasiirku sheegay propaganda ah, isla markaana uu been ka sheegay amniga Somaliland sida jabhado la sameeyay. waxa kale oo farta ku fiiqeen maamulka Horn Cable ay ku xadgudbeen heshiis ay hore ula galeen maamulka oo ku aadan inaan wax been abuura aanay ku kacin.
وهجاج هدبا إذا كسو يري مسؤولك حسبيجا ودني كترسن أنو جورنا ويتهالكني كوريس أنا قربته هرنا برنامجك وعن ورجع قد كمجال هرجيسا وكجرا مصطفى محمد يونسو حجيها قلها دحاء حسبيجا كلمية حسبيجا ثلاثة هي مدن سود دو إن حبناها حسبيجا معارض كهي ودني السجوية ماذا حرنتو هذا محاكو شبان أو عيدا كوديدي بسم الله الرحمن الرحيم xarunta xisbiga de waxa la iskugu iman karaa marka ololayaasha waa la iskugu iman karaa oo xeer baa fasaxa xisbi waliba maalintuu qodbadayn lahaa ee soo ololihiisa u qaran lahaa waa la iskugu imaadaa xarunta xisbiga waxa kale oo la iskugu iman karaa gudoomiyuu u yeeri karaa gudida fulinta golihiisa dhexe mustambeedkiisa wixii uu la tashi la sameynayo dhan iskugu yeeri karaa laakiin qaabkii la iskugu yeeray xarunta xisbiga ee gobolka Maroodi Jeex qaabka ka duwan buu ahaa oo u baahan in fasax loo qaato waayo waxa uu iskugu yeeray gobolka Maroodi Jeex oo dhan taageerayaasha xisbiga wadaniga halkaas kugu yimaadaan dadmiin waxay noqonaysaa gobolka dadka aan ka dhaxgalo adigoo raalli ah aan ka dhaxgalo mar dhaweyd ayaanu la hadalnay xubin ka tirsan wadani waxayna inoo sheegeen in ay markay doonaan xisbiga xaruntiisa isugu iman karaan arintaasi xeer ma ahan sharcina ma aha miyaad leedahay ma waxa weeyaan waa la iskugu iman karaa xarunta xisbiga waxa iskugu iman kara gudida fulinta waxa iskugu iman karaa uu ku shiri karaa xisbigu shirarkiisa caadiga uu ku qabsan karaa laakiin qaabku uu hadlay iyo hanjabaadii ka horeysay iyo taageerayaashii gobolka oo dhan iskugu keen muu taageerayaal fada badan gobolka uu ku leeyahay de waxay u muuqatay inay wax kale oo karaysa ay dhacayaan ayuunbu arrinkaasi u muuqday laakiin xarunta xisbiga waa lagu shiri karaa shirarka caadiga xisbigu ku qaadan karaa wuxuu diidayaa ma jiraan waa gartay warkaasi waa cad yahay dastuurka wuxuu qorayaa in xubin ka tirsan xisbi aan lagu dari karin commissionka maxaad u hareer maraysaan dastuurka oo loogu soo dirayaa xubin waliba hore wasiir u noqday halka waxa ku jira hadal kale ku jira xubinta maanta commissionka lagu daray waxaan filayaa inuu aad u jeedo in riya raac weligii muu noqon anigu xogeeyo gola dhaxanahay xisbinimadu waxa weeyaan marka uu qofku bixiyo contribution marka uu magaranaysa xubin firfircoon ka yahay xisbiga ama uu ku jiro gudida fulinta ama gudiyada gobolada ama golaha dhexe uu ku jiro inta midna in riya raac kuma jiro wana fatay waa ma santahay Mustafa waqtiga ayaa nagu soo koobtay aad iyo aad ayaad u mahadsantahay